tartanka xiisaha badan ee baaskiilada oo loo qabtay iskuulada ku yaala gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana tartankan ka soo muuqday dhalinyaro fara badan oo kala matalayay 14 iskuul marka tartanku soo ilaaday waxa tartankan ka warbixiyay xogayaha xiriirka baaskiilada maanta waxaan soo gabagabeynay tartanka iskuulaadka oo uu qabtay xiriirka Soomaaliyeed ee baaskiilada oo runtii uu ahaa tartan oo lagu tartamay oo ahaa 2 kiiloomitir marka waxa ka soo qayb galay 14 dugsi ku tartamay magaca iskuulada marka tartankii si guul oo ku dhamaaday si sharaf oo ku dhamaaday waxaan u mahadcelinaa daladaha waxbarashada iyo maamulayaasha dugsiyada oo tartan ka qayb galay iyo mataqaana wadayaasha gaadiidka oo ayagana ka qayb galeen tartanka iyo dadweynaha aad fara badan oo u soo daawasho tagay tartankaas marka astaan oo taabigelisay barnaamijkan ayadana sidoo kale aad iyo aad ugu mahadcelinaa astaan waa hay'ad u taagan horumarinta isboortiga iyo gacan siinta xiriirkan baaskiilada waa markii saddexaad ee gacan siinayso tartankan waa mid aad xiiso badan waxa booska koowaad tartankan galay Muxsin Axmed Muqtaar oo matalay iskuulka Xamarweyne halka booska labaad uu galay Cabdirashiid Colaad Qanyar oo asna matalay iskuulka Xamarweyne waxaana booska saddexaad galay Maxamed Cali Maxamed oo matalay iskuulka Veero Maxamed iyo Cabdirashiid iyo Muxsin ayaa ka hadla goobta iyagoo ka hadla dareenkooda sida uu yahay iyo boosaska ay kala galeen sidoo kale qaar kamid ah dhalinyarada matalaysay iskuulada kala duwan ee boosaska hore galay ayaa sidoo kale ayagana goobta ka hadlay wallahi bilaa xisdiida marsoo koobi karo ma sha Allah maanta ana kaan saxad galay walaalkiya kaan kuwad ii galay alxamdulillah kaan saxad kaan kuwad waxa isdhaama malahan waxa ilaaha maanta kaan saxad aan galay alxamdulillah balka waran tartankan waa mid xiiso badan 14 iskuul ka qayb galaysa maxaa dareentay inta kaalin saddexaad galay والله حماسة درين كان الكواد اللي هاد أنا قلت حد قال إيه كان الكواد اللي هاد أنا كمان سنتي أستان وان أو سكيل كني وكمان سين سنة السواد محرتين إن شاء الله لك كان كواد سنة كان هذا إلهي دين بسم الله الرحمن الرحيم أنا بلاوة مجاعي عبد الرشيد علاط خيرة كان الصعود سكول كدقمة حمروينة ما شاء الله درينك آدو كعسية هل كان مكسوك بكرة وآدم فرح سنة كوس كالنت لواضع قال كالنت كواد من حق الساعب كي بوس ما شاء الله آدم وفرح سنة ما أنت ذلك كان حق سوقاري والدين تيذ وديرجلي أنا ترتنك عنك خيب قالوا هديس إيك جرالة أنا ما أنت ما نجرين سيدوك الهويدي هل كان هاد علينا يا فاضل حاجو آدم ما سنت هاي هذا أدي أجرلين ما أنت أنا مجرلين ما أنت كالنت أنا مقلين sidoo kale waxaan aad ugu hambaleynayaa dhamaan ciyaartooyda soo qayb gashay tartankan iyo kan waxay soo bixiyay soo bandhigeen dadaal iyo juhdi sidoo kale waxaan leeyahay tabardhigina hana niijabina koos waxaan guush wax u dhashay qof u dhashay malaan kaalintaada waa galaysaa sug dadaal muujiya ani dadaalkan waxaan ku gali dacwaalid iyo adinka taageernimadiina ma sha Allah aadan ugu faraxsanahay assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh astaa waa ku dhawaay anigoo Muxsin Axmed Muqtaar oo maanta kaalin koowaad aan galay oo rajeynay ilaa waa yuumaadi inoo alxamdulillah ina kaalin koowaad galo waa ku soo kacina oo ina kaalin koowaad galo maantana waa kana alxamdulillah kaalin koowaad waa galay ma tartankii kugu horeeyay oo awid iskuulkaaga aad mintashay mise tartan aad ka qayb gasho Muqtaar ahaan Muxsin ahaantaad waa tartankayga labaad maanta tartankii sanadka hore waxa waa labaadan galay waa koowaad nin kala galay wax ma aan natiijadeeda ma aan ilaa u qoray ninkaas koowaad noo galo maanta aniga hadda waxaan ku rajeynayaa waa helay koowaadna waa maanta ilaa waa igu guul ii siiyo markaad koowaad gashay maxaa dareentay dareenkaaga sidoo ahaa farxad weyn aan dareemay koowaad waa hamiyay inaan galo intaas oo qof dad inaan koowaad galay inaa oo waa dadaalay dadaalkeyga markasta si u rajeynayo guul waa ilaa waa igu siiyo markasta inaan dadaalo barashada baaskiilada inaad baratid ugu horreyn kuwa kugu caawiyay waxa igu caawiyay walaalkay la dhahay Abuukar Axmed Muqtaar laakiin dhowka ku dheer ayaa igu caawiyay markasta rajada markii oo usaa bari waqti oo dadaalay dadaalkaas hadda maanta heerkan ku gaaray dadaalkiis ayaa iga yaalan Cabdicasiis Abuukar Ibrahim ali dhaha maanta guulan rajeynayaa sababtoo ah waxaan galnay kaalinta koowaad uniformkeena oo dhan anagoo wada jirno marka ninka noogu horeeyay wuxuu ahaa AK anoo hambalyeynaya saaxiibkayga inkastoo aan isku koox nahnay
saas ay taana alxamdulilah halka dhigeeda anigu aan galay kaalinta afraad oo qofkii afraad aan noqday waana ku faraxsanaa guushan inaan soo gaarno sanadahaas dambe maxaad rajaynaysaa insha allah sanadaha dambe waxaan rajaynaynaa kaalinta koowaad sida maanta oo kale oo weliba si farxad leh ay ku dheehan tahay oo saaxiibkayga AK haddii aan isla joogno insha allah iyo kuwa kale oo kooxda islanaana iyo ciise iyo insha allah inaan wada guulaysano annaga oo dhan muxsin axmed mukhtaar oo uu matalaya iskuulka xamarweyne ayaa sanadkii lasoo dhaafay tartanka baaskiilada waxa uu ka galay booska labaad sanadkaana waxa uu galay booska koowaad